wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka Puntland Anisa Cabdulqaadir Xaaji Muumin ayaa si rasmi ah xilkii waxa ay ugala wareegtay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi sida warkan uu ku faahfaahinaya Maxamed Siciid oo nooga soo diray magaalada Garowe. munaasabada ay xilka kula kala wareegayeen wasiirka cusub iyo wasiiradii hore oo lagu qabtay xarunta wasaaradda haweenka ee Garowe waxa ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Puntland hay'ada caalami ah haween shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale intii munaasabada xil wareejinta socotay waxa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen wasiirada qorsheynta shaqada iyo shaqaalaha ayaa arrimaha gudaha iyo wakiilka ka socday hay'adaha caalamiga ah oo dhamaantood goobta ka soo jeediyay hadallo ay ku soo dhaweynayeen wasiirka cusub ayna ku sagootinayeen wasiiradii hore ee wasaaradda haweenka Puntland Xaliima Xaaji Xasan oo madasha ka soo jeedisay hadal dheer oo ay diiradda ku saareysay waxqabadkii wasaaradda muddada ay joogtay ee sanadka ahayd ayay sheegtay inay diiradda saartay deegaanada laamiga ka durugsan horumarintooda iyo kaalmeynta dadka tabarta yar sida carruurta iyo haweenka danyarta iyadoo si gaar ah u xustay carruur indhoolayaal ah oo ay wasaaraddu ku hayso iyo gabar 13 jir ah oo la kufsaday isla markaana ilmo dhashay oo ay wasaaraddu mas'uul ka tahay kuwaasi oo ay si rasmi ah ugu wareejisay wasiiradda waxayna ugu dambeyn ka sheekaysay dhaqaalaha wasaaradda yaala iyo hantida ay maanta wareejinayso haddii aan ka hadlo dhaqaalihii iyo bunjab sore haddii aan ka hadlo dhaqaalihii sanadkii 2013 ay wasaaraddu ku shaqaysay waxay ahayd $1.3,189,055 waxaa lacagtaas ku jirta lacagta guriga lagu dhisay lacagtaas aan kor ka xusay ma aha lacag wasaaradda account ugu jirta waa lacag lagu shaqeeyay qaarna wali harsan oo ah tan guriga haweenka loogu dhisay walaashay Anisa wasiir Anisa waxaan ku wareejinayaa lacag dhan maanta 140,610.98 lacagtaas oo ah badideed lacag mashaariic u taal sidoo kale anigu markaan xilka la wareegay waxaan la wareegay 78,186.44 waxayna ahayd lacag mashaariiceed wasiiradda cusub Anisa Cabdulqaadir Xaaji Muumin oo ugu dambeyn goobta ka hadashay ayaa in xilka loo dhiibay ay habsami u gudan doonto waxayna tilmaantay inay il gaar ah ku eegi doonto qoysaska danyarta ah iyo waxbarashada carruurta runtii xilka loo dhiibayna waxaan rajaynayaa inaan dadka ku hagi doono u doodo dadka xilkooda haweenka kaliya maaha laakiin carruurta xataa xanaanadooda waxbarashadiisa loo kobcin lahaa caafimaadkooda sida loogu dadaali lahaa runtii maalmo waxaan leenahay carruurtanada ay tiinkeena noqonaysa laakiin carruurta hadaan aqli iyo garaadka iyo waxbarashadii inaan ka soo kobcin waxa weeyaan dad kuma tashan karna bari kamaal marka annaga aan iilka aadno marka hamigayga waa in dumarka iyo rag reer Puntland ku dhiirigeliyo tacliil kororsa tayo leh si hoggaanka dalka ay uga qayb qaataan kobcinta shaqaaleynta dadka wax bartay si ay uga faa'iideystaan cilmi kororsigooda asaaska hababka dhiirigelinta loo dhiirigelinayo ganacsatada dad badan oo ganacsataa jiro runtii dhiirigelin haysanin dadkan siiba ka hadlayna waa dad aad iyo aad danyar u ah oo u baahan in loo naxariisto oo la gacan qabto oo la dhiirigeliyo ama mid ha noqoto ra'yi ahaan ama mid dhaqaalaha noqotee in la abaabulo sidii wax loo gaarsiin lahaa dadka degmooyinka fogfog gaarsiisan sida gabdhaheeni iyo wiilasheeniba ay ka soo hadleen iyadoo aan rabno runtii aan baahida inta badankeeda aan rabno inaan daboolno runtii lama oran karo wax walba aan qabanaynaa sababtoo waxa loo baahan yahay sida xaqiiqada jirta inaan fiirino waa inaan eegi karno wixii annaga awoodannada ah xoolaha aan hayno oo wax ku qaban karno baahida intay la eg tahay intii dadka way kala daran yihiin sida loo kala daran yahay xanaaneynta carruurta iyo difaaca xuquuqdooda aad iyo aad baan u daneynayaa iyo tan dumarka dhiban iyo xaq sooridda qoysaska oo si hufan aan ula shaqeyn doono Maxamed Siciid Somali Channel Garowe.